dhimashadu waxay kor u dhaaftay 83 ruux gudaha magaalada Gaza. Diyaaradaha dagaalka Yuhuuddu waxay bambooyin la dhaceen dabaqyada dhaadheer iyo dhammaan wadooyinka magaalada Gaza. Tan iyo markii weerarka Israa'iil uu bilowday galigii dambe ee Isniinta, wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 83 ruux ay ku jiraan 17 carruur ah lagu dilay, in ka badan 480 lagu dhaawacay. Dhanka kale, afhayeenka guutada Qassam ayaa sheegay in garabka hubeysan ay markii ugu horeysay gantaal ku rideen garoonka diyaaradaha Ramoon. Gantaalka Ayash 250 oo ridadiisu gaarayso 250 kiiloomitir ayaa lagu bilaabay garoonka diyaaradaha ee Ramoon, qiyaastii 220 kiiloomitir u jirta magaalada Gaza. Gantaalkan ayaa waxaa loogu magac daray Yaxya Ayash oo ka mid ahaa howlwadeennadii ugu sarreeyay ee Xamaas ka hor inta uusan shahiidin 1996. Gantaaladeennu waa mid loogu talagalay dhulkeenna si aan ugu difaacno dalkeenna, sidaas waxaa yidhi Abu Ubeyda. Sidoo kale, Abu Ubeyda wuxuu yidhi ma jiraan qadcas aan haddii Masjidul Aqsa lagu xadgudbay. Qaybtaana waxaan idinku soo gudbin rabaa dhacdo aan la yaabay oo isla Falastiin ka dhacday, waxaana geystay dhacdadan ciidamada arxanka daran ee Yuhuudda. Sawirkan hortaada ka muuqda waa Abu Thuraya, waxaa labada lugood ka jaray ciidamada Yuhuudda bartamihii 2008 asagoo kor saaran baaskiilkiisa naafada, korna u sida calanka Falastiin. waxaa toogtay canaasiir ka tirsan Sahyuuniyadda. لا يوجد في قلوبكم أي ذرة للرحمة، تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ. بالطبع هكذا يا أخوي، كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ. أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون، أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية. والله 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 سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله.